Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada qisooyinka nolosha. Galab casir ah ayuu arkay xaaskiisa oo nin gaari ka soo dega xabsiinaysa oo weliba waddada bartankeeda la taagan lana qoslayso isagoo tallaabada boobaya oo cara darteed wejiga kaduutay oo isleh iyada iyo ninkaba gacan saar ayuu soo gaaray. Kadibna hadal wuxuu ka bilaabay, kolley macsida haddaydan qarsanayn ma weydeen meelaad isla gashaan. Iyadoo dhoola caddaynaysa ayay ku tiri, gacaliye barasho wanaagsan, waa walaalkaygii maqnay ee hebel oo hadda yimid. Kii kalena waxay ku tiri, walaal waa sidigaagii aad maqashay. Ninkii naxdin daraaddeed wadnaha ayaa go'ay. Kadibna ninkii baa ku yidhi, seedi barasho wanaagsan, hadalkaas gafka ahna gogol baan kaaga fadhiyaa oo waxaad soo kaxaysataa waxgaradkaagii waa inoona caawa iyo xaafadda. Isagoo cagaha jiidaya ayuu ka dhaqaaqay meeshii. Habeenkii buu is yidhi, cidnaha kaxaysanine ee waa reerkaad xididka la ahayde keligaa u tag oo raaligeli una qoor dhiibo, wax allaale waxay kugu xukumaana qaado. Albaabkii guriga markuu soo garaacay ayaa waxaa ka furay wiil yar. Waxa uuna ku yidhi, qolkaas ayay raggii kugu sugayaan ee gal. Nalka hore gurigana wuu dansanaa. Qof dumaroo deerka dhex taagneyd ayuu xaggeedii u dhaqaaqay. Xaaskiisii ayuu moodayey maadaama reerka keligeed gabar lahaayeen. Intuu barida dharbaaxsho kaga dhuftay ayuu yidhi, naa qolkayaa igu sugayo, waan ceebaysanahaye. Waxay ku tiri, eedo waa hooyadeed, iyadii dadka qolka kugu sugayay ayay ka mid tahay. Guduba u sii tag, arrintaana gogol kale loogu soo noqon maayo ee meeshaan keenayaa. Fudeedku waa balo, hufsiimadun waa muhiim. Fadlan haddii aad qisadan wax ka faa'iiday inoogu reeb dhanka kommentiga.